sideedaba qofka muslimka ah ee bani aadamka wuxuu u baahan yahay qalbiga inaan laga jebin ee qalbiga loo dhiso niyadda in loo dhiso oo qalbiga loo dhiso nolosha wax badan baa qofka ku imanaya xanuun baa imanaya baahi baa imanaysa colaad baa imanaysa geeri baa imanaysa baqdin baa imanaysa farxad baa imanaysa shaqo la'aan baa imanaysa dagaal baa dhacaya mushkilada iska imanaya deyn baa imanaya waxa u baahanay marka inaan qalbiga la iska jebin oo la isku qalbi wanaajiyo dadka qalbiga qofkii hawli ku timaado inaan la oran khalaas waa u dhamaatay kaas oo aan lagu dhaga hadlin oo saa lagu oran laakiin niyadda loo dhiso sidii ku hagaagi lahaa marka haddaynu inagu ummad muslima nahay soomaalina weli gaar ahaan nahay hawlaha badan ee mushkiladaha ina haysta wax badan baa qalbi jab ay nagu keenaan iyadoo hawsha culayskaasi jiro baynu haddana innagii meeshaynu qalbiga isu dhisi lahayn baynu isa sii qalbi jebinaynaa markaasaa qofkii wuxuu noqonayaa qof jugtii ku dhacday iyo dhibtii soo gaadhay walaalkiisii barbar joogay meeshii laga rabay inuu niyadda iyo qalbiga u dhiso in markii uu yidhaahdo waa khalaas tusaale ahaan hadda maalan qof baa xanuunsanaya dhakhtar baa la dhigayaa isagoo xanuunsan baa loo tegayaa xanuunkaasaa haya maxaa la odhanayaa hadhow marka xanuunkaasoo kale hebel iyo hebel buu ku dhacayoo kama kicin ninka uu ku dhaco ka kacay lama aragba ninkii jiifay ee xanuunsanaya haddii layidhaha ka kici maysid maxaad u malaynaysa khalaas waa sii qalbi jabay soo maaha laakiin waad bogsanaysaa insha allah xanuunka iyo jirjileeca looma dhinto adayga iyo caafimaadka laguma waaro waa ladnaanaysaa allaha bukaanka keenay baa caafimaadka keenaya khayr bishaarayso adoo ka kacay oo jamicii masaajidka ku soo tukanaya oo danahaaga qabsanaya oo diin iyo dunyaba ka shaqaysanaya baad arki doonta qofku wuu farxaya marka niyadda wanaagsanaays marka wax kasta waa tusaalan baan uga jeedaay qofkii carruurtu ka dhintaan oo kale inaan la odhanin maxaan ku idhaahdaa waxa weeyaan kaasi ilmaba u noolaan maayo haddii ilmo u noolaanahay hore ugu noolaan lahayn carruur ama noolaan mayso kii xaasasku ka dhintaan in la yidhaahdo kaa ayaan la guursaday naagtuu guursado waa dhimataaye dhowr baa ka dhintay yaan loo dhowaan in la yidhaahdo isagii marka dhibaatadii ku dhacday dhegxumadaa uga daran dhegxumadan kale lagu hayo baa uga daran kii daymooybay oo kale kii maxaan ku idhaahdaa baahan oo kale kii aan waxba garanayno u baahan aqoon loo kordhiyo kale inaanu dhibsanin kii wax ku dhaamay wax weydiinayo inaanu dhibsanin wixii aqoon iyo cilmi uu ku dhaamo uu u sheego kii macallinka ahaa ama maadi ha dhigo ama diini ha dhigo qofka uu wax u dhigayo inaanu niyadda ka jebin oo aanu odhan maxay waxba baran mayse damiin baa tahay adiga u malaynmaya weligaa inaad qof wax baranaya aad ilmihii yaraayoo ninkii macallinka ahaa ee uu ku dayan lahaa ee waalidkii labaad ahaa ee lagu aaminay loo keenay ma waxbar baa la yidhi ilmaha mase qalbadda ka jebay baa lagu yidhi ilmihiiyo markaa casharkiina ku yara adkaaday waalid macallinkiina qalbigii ka sii jebiyey hadhow niyadba uma haya waxbarashada ilmihi waayo dee wuxuu ku yidhi damiin baa tahay ardaydii oo maqlaysa fasalkiiyo buuxu wuxuu ku yidhi adiga damiin baa tahay wax fahmi maysid maskax dhagax baa tahay waa caynkan sax maaha waxaa ka mid ah ninku islaantiisa iyo xaaskiisa oo kale noloshu ka dhaxayso inuu ka ilaaliyo hadallada qalbi dilka ah iyo qalbi jabka ah oo markaa gabadha ama akhlaaqdeeda khuseeya ama diinteeda khuseeya ama nasabkeeda khuseeya gabadhii uu qabay xaaskiisa ahayd baa laga yaabaa inuu nasabiyaddeeda caayo aabbaheed caayo oo hooyadeed caayo baa dhici karta ama qabiilkeedaba caayo ama tabci ay leedahay uu ku caayo waa xaaskiisii ilaahay u xalaaleeyey awlaadda alla ka siinayay tabci bini aadamku dawaa'icdu waa kala duwanta meeshuu qalbiga u dhisi lahaa oo soo caynkan inuu maaragtay caynka sameeyo waalidkii waxaa laga yaabaa ilmihiisii qaarkood ilmuhu dee isku mid noqon maayaane inuu maxaan ku idhaahdaa niyadda ka jabiyo waxaasoo dhan marka looma baahna ninka uun siyaasiga ah inuu shacabku xukumo qalbadda ka jabiyo madaxweynuhu saasoo kale ninka sheekha ah ee dadka wax u akhrinaya ee diinta u dhigaya ama wacdinaya waa inaanu ummadda
إنه رسالة ربا مسكح ذا كدسه وإلهي كحره لكن ماذا إنه قلبه كدل الله مرة وقلبه كتشبيه سيدا وقت بوحي علماء يرهدا ضدك أو قلبك الله دسو مسلمين تأهي waxaa ku jira faa'iidooyin badan kow horta ogaada qalbiga oo dadka loo dhisaa waa cibaadooyinka ilaahay loogu dhawaado kamid ah waa cibaadaadka ilaahay loogu dhawaaday kamid ah subhanahu wa ta'ala tusaalayaal dhowran keeni doona xagga kale qofka dadka qalbiga u dhisa ee naftooda dhisa ee u dhisa diin ahaan iyo dunya ahaan waa qof nafsadiisu وقف همي النفسات آدو سريسة له وقف قلبي سوين يهي وحبضان وحنباري كرو وقف على الفيو أوضد كأن عقدد عراد عداود من أن أقبن على الفي عن قلبي فيو أو ربضت كو دنيني وناك سنادان شرفته دو وناك سناتو دين دو وناك سناتو آخره دو وناك سناتو معها قف عيلي عرقبة أوضد كو إني رقمدان وبابان شعل معها حاجة كله وقف عقلي بدن وحكوت سنة إنه عقلي بدن يهي قف كدتك قلوب تود إلى لنا كيس إن لا إلى ليه ربضتك قلوب تود أيو إلى لنا سيدا أوجد إن نفط لكبه أد أقيم بدن وحورنشري سفيان الثوري ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه ما أرك عباده وقفك ربك وجود واده مثل جبر خاطر أخيه المسلم كبست وقفك ولالك مسلم كقلبك سأوكبه عبادتها كوين ما أرك وهي قفك بعد صور دستو إنه كلا تشهده مسكح حديث مسكح في يوم وكانوا أنه قفك سكرا نقنن وهي المهمة دمشة هذا القرآن كان آد بأقوب بدن تهاي وآدكو أركيسا ميلا بدن الله سبحانه وتعالى وكت المامي نبي الله محمد وفرسو وقال الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك لا بتعظم ميانا واسعين نبي محمد عليس كيكو هيي سو كامدة شنبا إلهي سبحانه وتعالى قلبي أقول لا بتعظم صوماء ننفرين وأركدونا نبي الله موسى أيوه وقعدي كدعدي وأركدونا نبي الله لوط markay u yimaadeen malaa'igtii oo ay u socdaan qoladan inay rogaan waxa dhacday inay dadkii qoomkiisa ah ku soo fafakadeen malaa'igtii ilaa waxay ahaayeen ragga wax ka doonay ahaayeen oo basar xun oo dhaqan xun bay ahaayeen Allah subhanahu wa ta'ala wuu tilmaamayaayo walamma an ja'at rusuluna luta سيء بهم وضاق بهم ذرعا نبي لوط مركي يمادين رسوشي أن صادرني أو ملائكتي قوم كي سوا حميين ملائكتي أو بشر اسكسر دكتبي كسوف فكنيان أو ربان إني فرحمين كسوميان أرنت هسي مروق بلادك مرتي كوتشوفته ودتك مقالة تشوي لقى لله كون وربان دباتو جستان إلهي وحده الله سبحانه وتعالى وضاق الله وحده الله سبحانه وتعالى بهم ذرعا لابتيسي وحكو كعيين ويعريريونت عيل عدادس حوق له بو ضريمه إلهي وجهه أبنير وقال الله سبحانه وتعالى محيري وقالوا لا تخف ملائكتي بالله هذا الشيء عبصنين أنك وحمنك ما قاعد كران بني آدم بين موديان صورة بني آدم ما دام يسوسو يالي لا تخف ولا تحزن نبي لوطو عبصنين أنك هنوبقين هولولين همروغون إنا منجوك وأهلك هلاك أرورتي ودعي دونا أنا وكو بدبادينينا ضدك أنا وبدبادينينا إلا امرأتك إسلام تادمو يعني إسلام تادو وقال يجينا الله شقيساه بمعنى مركع عدي كوتي ما دي ودكتا وهولها سيكلا شقيسا ما دام أي قالته إسلام تادمو يعني كانت من الغابرين يضنا وحين نقول دون تكون عذابك كهرة إميشا لو عذابه أيان محان كرادك ونقول دون رسولك مركله صلى الله عليه وسلم مركي مال ما وحي وكلا أي أو نمانكي قريشات لقى هذا الكبريين أو أي دبين
إلهي محكويري ولسوف يعطيك ربك فترضى محمد إلهي وكرالي جلين دونا وترالي نقون دون تبع الله سبحانه وتعالى الدليل هذا سبحانه كتوسيسا سيد إلهي أنبياء قلبي أقول الصير يضع أنت كفاه فحسنا وأركي دونا إلهي مركل وحوري سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك شرفت هذا يحسك هذا كربا نقادنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنا يكوها الله يعني وواليه وساحرولي وبينالي قلبي كاجا توريان حبياني كسامين شرفت هذا يريك يا كربا نقادنا قف صلاة كذا متشره إلى نبي الله محمد بصوق هذا عليه الصلاة والسلام مركو توحيد سنة قف الدماء متشره إلى نبي بصوق هذا صلوات الله وسلم مد أقيمة متشره إلى نبي بصوق هذا صلوات الله وسلم سلي سؤال عبادك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ومرك الرسول كسوى قلبي أودي صيه واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه أتكيسو صبر أبالك صبر كاوليه إلهي أكتب كويا الله ولا تحزن عليه هكم رجون كونك ولا تكو في ضيق مما يمكرون لا ابتادوا يعني كعري اليوم وعليس كدريم وحنا ملايقيان لبعضنا إنكارها إن يسميه أي ربان يكسامين بقال الله سبحانه وتعالى نبي الله يوسف أبيه سؤال وشيك سبحانه وتعالى فلما ذهبوا به مركي النبي يوسف لا تجين ولا الذي وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أو أي قان صدين إن عيلك سلك أوديغان أو كتوران أي قان صدين وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ونوحيوني وحايك قصة مينيان مانتا يغو آن درين سنين بعد غور رمي دونتا مالين كالي نبي الله يوسف فإله إليه سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم وأركي دونا واتي ضبك اللي قل هدي إن إبراهيم كان أمه ضدك ودن بيكوريمي والله شيء قد بالقضي حابا لغو شيء مدة اللي شيء إن الجوال الدمعي إلهي وحوري السجى كلي جيبا أمة ولك من كان إنه إلى إبراهيم أمة باكورتي مسوما إبراهيم أديك أمة ولك ما أمة دمبات إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وأضون إلهي أقنوضه سبحانه وتعالى أغشوعه وقانسا وعلى وحي شركي حمانا كالصول لحده ولم يكن من المشركين مشركين تكمد معه الله سبحانه وتعالى ساس وغور رمي مرك قلبي مرك سأقول سي أنبياء سيرزوشي سوى أركي دونتا وحين أركي دونا أحاديثة مسلمين تقلبي وسي الله سيو حق أحاديثة إمام البخاري وحصو صاري حديث عجب له والبراء بن عازب الأنصاري أورينيو النبي صلى الله عليه وسلم مركي وأصوب حي عمرة ذي القعدة قلت النبي هل مرنا واحد شيء صلى الله عليه وسلم هل مر واحد شيء صوبته هل مر واحد شيء وحويه ما قال لي ما كوال هيستي قال هيستي سنة كيس ديدات بالا فرطي سنة كيس قالاتنا أبو بكر صديقي عمر إيه ركبضنا صحابة أبو صادر النبي صلى الله عليه وسلم وحج كيري هجامية ومدنا ورجلية إن سنة كصوص عضو إيمان دونه حلا وحي ماشى يا لي أسنام يا وحنا ورا لو جندي فيه قالوا قف دنبو قالوا مشرك أهنا حرم كاس ما إيمان دون النبي صلى الله عليه وسلم سنة كي تبناد بسوا حجيي مركي أو حجيي خطبة دي سوى حكم ذا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا حلا جاي بقينا سنة كي جن كبعدي إذن لكل موايا دعك والنبي وسيت المام يا جيريدي صلى الله عليه وسلم مركو حجك كان قضي لا سديتن يلا بها بين بونولا أما الله ببلاد يلا باتن بري بونولا النبي صلى الله عليه وسلم كبعد نواب انت مركا هالك أمر بأصورة قشين وحجيو صلوات الله وسلامه عليه أفر جيرنا وعمريستين النبي صلى الله عليه وسلم أفر تجير وعمريستينا بشا ذي القعدة أي النبي وعمريستين صلوات الله وسلامه عليه وبشا صنفرات كدم بيسا أي النبي وعمريستين رمضان وطين وصو صعوتيه سقال رمضان النبي هو صومي صلوات الله وسلامه عليه إمي صار رمضان بالنبي محمد صومي هدي اللي بيرادو سقال رمضان بالنبي صومي صلوات الله وسلامه مركا رسولكم مركو عمرة ديسي وبحي
تبعته ابنة حمزة حمزة أديركي سوماهين إنن أدلي وير أيا دبق الشيء وهي تقول يا عمي يا عمي يذوله أذر يذوله وبحي أذر أولاده ابن عمي محورا ويدي إن أذركي ويلكي سيو محورا ويدي دي حمزة يا رسولك ناس بيود النوجين حق الناس كي كول عليهم حق كلا نسب كنا ويسو أذر وكي أذر له يا نبي صلوات الله وسلامه عليه مركا إن أنت ير مرنا النبي وائل ما أذر صلوات الله وسلامه عليه مرنا أذر بوجيه هاي ما دام أبيد الناس لا تشقى أذر وبيتير مركا فلم يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق ما مقل المركا فتناولها علي بقى قبدي قعنت قبت وإن أذر كده بعد عليه صوما علي بقى قعنت قبت رضي الله عنه فأخذها بيده وقال لفاطمة أو قبي ورسولك قبدي سيهيد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها بوحي كيري دونك ابنة عمك احمليها قبو احمليها قبدنا أذير كاد علي قبو قبد قاد وسيفي عنوها قاتش وكوري وكا وحا أركا يوم ميشا كدو جعفر بن أبي طالب فإسنا ميشا كدو مركاسة أو دي علينا أي ولا عليهين رسول كان صلى الله عليه وسلم الماديريهين قبض يرنا الماديريهين فعلي ماشي تاغن اسمه جعفر با قبض قبصة دي مركا فأمسك بالطفلة قبض جعفر كدقي وقال أنا أحق بها قبض أنا عيد كوريسة أنا أحق هذا عيد قولي إذا جينا يسوء كورينا يسوء هوشا وضع يسوء إنني قمودني متشيرو وهي ابنة عمي ورتمر قول رئيس وإن أذيرتي marka labaadna habaryarteed baan qabaa wakhalatuha tahti habaryarteed baan qabaayo habaryarina hooyay kula mid tahay Zayd ibn Haritha arkay hadalka meesha ka socda Zayd ibn Haritha waa nin rasuulka isaga iyo aabihiiba aad u jeclaa weeyaan baa arkay markaas wuxuu ku yiri ibnatu akhi war labadiinaba jooga labadiinaba bulkaadii gabadhan walaalkay baa dhalay aan islaamnimo walaalku lahay baa dhalay وحمزة وكدود المركب إن أنت يا كدود إسكوها يا وعلي يا ولالك يا جعفر يا زيد بيسكو قبتي قباديري فاقتسم فيها علي وزيد وجعفر ميدول يوحول قبل أنا كورينية اللي أضيق هو الشهادة قاتل أحد بكل انتي والمير أنا كورينية دقالينية وعينك سؤال لك الحكومة وما بحنا ميدول بين قلبي سلا إلى عليه نبي صلى الله عليه وآله وسلم ضد أيادي عجيب كسوق الحكومي قلبه نو في إلى فيري هرت قبل بس قعنت سوقت النبي صلى الله عليه وسلم أمسك البنت بيدها قعنت قبت وقضى بها لخالتها هبريرتيد بو حكومي هرت قبل كان بير هبريرتيد ضد وحق بي جعفر صومها اللودي وقبل وقال الخالة بمنزلة الأم habaryari booska hooyo ayay joogtaa sida adeer booska aabe u joogo gabadha halkaas lagu wareejiyay labadii saxaabi marka way taagtaageen gabadhii waa laga wareejiyay Soomaa ninkii yiri gabadha aabaheedna walaalnimo islaamnimo naga dhaxayso ana idinka xiga iyo kii yiri waa in adeertayba rasuulku sallallahu alayhi wasallam hagaaji Ali muxuu ku yiri faqala li Ali anta minni wa ana minka warta aliyo gabadhan yar marka warkeeda la iska daayo nin igu bannaan baa tahay aniguna anigaan ku ahay adiguna anigaadi tahay marka hadii gabadh yar laga wareejiyay nabi maxamed baad bahaysataa salawaatullaahi wasalaamu alayhi waxa ka maqna de Ali waa qanacay soo ma aragtay soo nabiga qalbigiisa u ilaalin sallallahu alayhi wasallam Ja'far ibn Abi Talib buu la hadlay muxuu ku yiri adiga Soomaha ashbahta khalqi wa khuluqi dadka ninka igu eg baatay ليجا كا يقان حق أبورته يحق دقن كبا وقنع سحابي سمجد سنة وقنع عيني في صلوات الله وسلامه أخلاق ذا يا أمور كبا آد بدي شبه هذا أديب وأيقول أكتب النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه زيد بن حارثة بو فيري ننكي لها ولا كان سلام لماذا قلنا ولا الباقي ولا دالي وكاسم حكوير أنت أخونا ومولانا ولا الكياته ninkii aanu isxignay baa tahay
ninkaanu jeclayn baa tahay nabiga sallallahu wasallam alayhi waxay ku tusaysaa arintu dadka quluubtooda la dhiso inay cibaado tahay way ku tusaysaa cibaado inay tahay way ku tusaysaa bal u fiirsan nabiyullaahi ibraahim waataynu hadda sheegaynay kaana umma markuu alla yidhi kelmaddii tawxiidkayda dabka loogu riday ilaahay muxuu yidhi wajacalahaa kalimatan baaqiyatan fii caqibihi lacallahum yarjicuun nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ma jiro ilaa nabiyullaahi subxaanahu wa tacaala nebi ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala ibraahim dabadii ilaa nebi ibraahim durriyaddiisi unbuu ka mid yahay ilaa nabiyullaahi maxamed ku dar salawaatullahi wasalaamu calayh weli qur-aankii baynu dhex soconnaa tusaalayaasha markaan xadiidka iminka ka gudbo nabiyullaahi muusa hooyadii qur-aanka qalbigeedasa u kabay fiiri fircoon wuxuu xukumay wiilkii dhashaaba in la dilo wuu xukumay gabdhahana la iska daayay markuu wiilkii ay umushay oo ay aragtay inuu wiil yahay nabiyullaahi muusa ilaahay amar buu bixiyey subxaanahu wa tacaala muxuu ku yidhi an iqdi fiihi fi ttaabuuti faqdi fiihi fi lyammi falyulqihi lyammu bisaaxili hooyaa hadda dhashay wiil kale ma leh hadda markay dhashay qaad sanduuq ku rid webiga ku tuur soo arrin adag maaha webiguna isagaa hadhow xeebtaya halkaa geen doona iska mushaaxi doona oo tegi doona amarkaasaa la siiyey ilaahay markaasu wuxuu inoo sheegay markuu sidaa ku yidhi nabi muuse hooyadii qalbigeedu siduu ahaa wa asbaxa fu'aadu ummi muusa faariqaa nabi muuse hooyadii qalbigeedu wuxuu noqday mid maran buu noqday faaruq ah maxaa looga jeedaa faaruq ah ibnu kathiir markuu fasirayo wuxuu leeyahay min kulli shayin min umuuri dunya ilaa min muusa wax kasta oo arrimihii adduunka ah oo dhan qalbigeedii waa ka maqan yahay muuse unbay ka fakeraysa ila waa beer wax dhalay caaway umushay badda ku tuur baa la yidhi ilmihii yara walaalsu arrin adag maaha ya waa arrin adag sidii nebi ibraahimba loo yidhi wiilkiisa ismaaciil gowrac wiilkaagii sidii loo yidhi oo kale badda ku tuur allah subxaanahu wa tacaala laakiin qalbigeedii wuu kabay fii suurati alqasas muxuu yidhi فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه موسى وعلني إلى أمه هو يدي بامعلي كي تقر عينها سي قلبي جيدي إشيدو ودقان وقبوبان ولا تحزن أين أمرقون بأليه سبحانه وتعالى المي يرامكي لقاضي فرعون باقبتي إسلامتي سيسيقو دون وضا صارم عرور مالهين نو دابا ليري islaamihii carabtu waxay dhaqan u lahaayeen islaanta irmaan ilmaha nuujinaysa caanaheedaas waxaa may haysan dadku sabool bay iska ahaayeen caanahaasay ilmaha yaa laydin nuujiya war yaa ilma noo nuujiya yaa ilma noo nuujiyaa bay dhahaan markaasaa ilma loo dhiibtay nuujiyaan lacagna lagu siiya islaamihii wax nuujin jiro dhan baa loo yeeray muuse mid qura inuu naaskeeda qabsado waa diiday gabadhii walaashii ahayd bay hooyadeedu waxay ku tidhi dusha kala soco sanduuqu markuu biyaha dhex marayo fircoon baa qaatay caynkan warbixintay bixinaysaa gabadhii yarayd markaasay wiilkii oo naaskii diiday ooyaya bay waxay tidhi war anigaa garanaya islaamay carruurtu diidin ilmihii loo geeyaba naaskeeda huruf ka qabsanaya baan idiin aqaanaa nookeen baa layidhi nookeen islaantay sheegaysana waa hooyadii dayid gabadheedoo fariid bay ahayd mogta anaa garanaya bay tidhi ilaahay muxuu yidhi وحرمنا عليه المراضع وحالا وحي النوغماها اسلامي نوجنجري وكحرم وكقديم والله سبحانه وتعالى اسلامتي با لها ويل كده ولا غورعيا هي روا غورعيا با كبري او يير مكاسا ويلي انو بيل قرنا ولا لو خصم ويل كانوجي بيل وا كو قرينا ساسا لو كان موسى دبتay ku qabatay mise horu naas ka qabsay laba hooyadii